الله ولا لك لقامتي انك اكو كرمتاقن اسمك ونيسي دامنوي ولا اسمك ونيسي ولا الهي درتي ساديتاي قبر صوماليات باديتاي والله لازم اسقاونين إن adeerkay anuu ku dhaartay inuu iqaawiye ku dhaartay inuu iqaawiye ku dhaartay inuu waqti badan ayay caan ka ahayd baraha bulshada gaar ahaan aalada la daawado YouTube-ka ugu dambeysay waxa ay sheegtay in markan ay jecleysatay inay toobad keento kuna socoto wadada saxda ah iyadoo sidoo kale qirtay inay la kulantay qisooyin sababay in durba ay isbedesho sheekadina maanta waxaan ku eegi doonaa haweeneyda caanka ka ah aalada la daawado YouTube-ka ee la yiraahdo Mama Malyuun waqti badan ayay baraha bulshada ku soo jirtay gaar ahaan Facebook-ka iyo YouTube-ka mar qura ayaa la arkay iyadoo isbedeshay waxayna soo duubtay muuqaalkan aad daawaneysaan oo xijaaban in shareedna sidata waxayna sheegtay in markan uu isbedel ku dhacay ayna dareentay naxariistii Alle oo ay isbedeshay haddaba waa maxay isbedelka degdega maxaa keenay sideese wax u dhaceen maxaysa kamid ah qisooyinka naxdinta leh ay la kulantay iyo riyo ay sheegtay in ay noqotay midii ugu naxdinta badneed ee wajahtaas oo sababnu ahaa degdegna u noqotay in isbedel ay ku sameysay nolosheeda iyo in ayadoo sidoo kale raali gelin ka bixisay muuqaaladii hore ee ayadoo qayb ahaan jirkeedu banaana ay baahisay sheekadan ayaa daawadayaal wax badan aan ka eegi doonaa haweeneydan caanka ka ah aalada la daawado ee YouTube-ka iyo sheekadeeda hase yeeshee ugu gudgelin daawade kan laagde falona si raacay sida shargaray muuqaalkan si saaxiibo badan ay u gaarto qisada haweeneydan caanka ka ah aalada YouTube-ka iyo waliba Facebook-ka ee la yiraahdo Mama Malyuun oo si weyn ugu soo caabaxday labadii sano ugu dambeysay aalada la daawado sheekadeena ayaa maanta wax badan ka eegi doonaa aan ka hormaraysa sheekada haweeneydan labadii sano ugu dambeysay gaar ahaan saddexdii toddobaad ugu dambeysay ayaa aad ugu dartay marka la eego muuqaalada ay baahisay haweeneydan Mama Malyuun muuqaaladaas ay soo gelisay barteeda YouTube-ka badi dadka qaarkood ayaa ku micneynayay inay tahay qof aan caafimaad ahaan aan fiyaweyn halka dadka qaarkood ay sheegay inay aad u fiican tahay caafimaadkeeda laakiin ay tahay qof laga waalay ama laga badbadiyay hase yeeshee ugu dambeyn ayada ayaa qiratay in qaladaad badan hore u soo sameysay markaas waxay sheegtay inay toobad keentay waxay tiri waxaan abaarayaa wadada saxda ah waan isbedelay waxaan la kulmay qisooyin xanuun badan Allah wuxuu ugu hanuuninayaa markan wadada toosan ayay tiri Malyuun oo muuqaal ay soo duubtay oo ka muuqanaya iyadoo ilmeynaysa inkastoo muuqaalkaas waa kii ugu fiicnaa ay soo duubtay iyadoo asturan haweeneydan ayaa la xasuustaa in iyadoo dhowr mar hore culimo caan ay isku degayeen sidoo kale waxa la xasuustaa iyadoo sheegtay inay ka baxday diinta Islaamka inkastoo mar dambe ay qiratay inay ku soo laabatay haddana ay toobad keentay waxayna sheegtay in naxariista Allah ay tahay mid weyn dadka Soomaaliyeed waxay sheegtay in aan laga soo geelin naxariis iyo in ay ku waaniyaan waxaan waaye qof waaniya wax ii sheega laakiin ugu dambeyn waxa la tusay riyooyin aad u xun oo xanuun badan wantan qasabtay inaan isbedelo ay tiri Malyuun oo ah Mama Malyuun oo haweeney caanka aalada la daawado YouTube-ka iyo sidoo kale Facebook-ka sida muuqaalka video-ga hoos kaga muuqda ama aad ka wada aragtaan waa iyada oo in shareer xiran iyo xijaab oo aad u asturan waxayna sheegtay in qiso cajiib ah uu ku dhacay ama ay la kulantay qisadaas oo iyada ku dhacday waxayna dib ugu soo laabatay wax walba oo wanaagsanaa sida ay sheegtay waxay tiri waxaan dib ugu soo laabatay diinta Islaamka ayada oo Rabbi isoo hanuuniyay waxaan doonayaa markan in ummadda Soomaaliyeed ay soo duceeyaan oo qalbigaygu uu noqdo mid Allah u dejiyo waxaan dareemayaa cadaadis badan iyo sidoo kale riyo xun ayaan la kulmay tiri waa tan keentay inaan isbedelo iyo tiri Mama Malyuun haweeneydan ayaa caanka aalada la daawado ee YouTube-ka iyo Facebook-ka halkaas oo ay dhowrkii bil ugu dambeysay ku baahineysay muuqaalo anshax xumo ah iyo kuwo ayada jirkeedu banaan yahay Soomaali badan ayaa aad ugu dayrisay kubana si weyn kaga hadleen sheekada haweeneydan inkastoo haweeneydan muuqaalada ay baahisay ay badi ay ku cabanaysaa ama sheegaysay in la kulantay tacadiyo xoogan oo galma la xiriira iyo tacadiyo kale waana taas ay sheegtay sababta keentay in ayadu ay ka tagto nolosha iyo arrimaha bini'aadanimada
haddaba qayb ka mid ah muuqaalkeeda ayaan soo qaadanaynaa oo ka hadlaysa waxa iyada ku dhacay iyo waxa isbedelay. inaga celiya dumarow, allah baan leenahay, allah baan addoonkiisa nahay, allah cid nooga sokaysa ma jiro. dumarow allah laga boqo, allah weyn ee waaxidka ah, ee caadilka, ee xasiiska, ee qafuurka. aniga daawadaydi waa hela, aniga ilaahay waa daaweeye, aniga daawadaydi waa hela, aniga waa caafimaad, anigu waa caafimaaday, caafimaadkan caafimaaday aniga soo asturay. ilaahay waxaan ka baryay gabadhii dhibaataysanayda ilaahay dhibaatada kaa bi'iyo. ilaahay waxaan ka baryay gabadhii ciilana ilaahay inuu ciilka kaa bi'iyo. ilaahay waxaan ka baryay gabadhii caajisana ilaahay inuu caajiska kaa qaado. ilaahay waxaan ka baryay gabadhii qaawana ilaahay inuu ku asturo. ilaahay waxaan ka baryay gabadhii ciilana ilaahay inuu ciilka kaa bi'iyo. ilaahay waxaan ka baryay gabadhii irsaaqad haysana ilaahay inuu irsaaqad waasaca ku siiyo. ilaahay waxaan ka baryay gabar walbo Soomaaliyeed meeshii ka dawalaysa ilaahay inuu ka tiiriyo. ilaahay waxaan ka baryay nimanka Soomaaliyeed inuu ilaahay xaqa tuso, wadaadadeena ilaahay inuu xaqa tuso. mar allah ka baryay, allah waxaan ka baryay in ilaahay awlaada inuu hagaajiyo. allah waxaan ka baryay in ilaahay quluubteena wanaaga ku rogo. allah waxaan ka baryay, ilaahay waxaan ka baryay inuu qof walba meeshu ka dawalaayo ka tiiriyo. mar allah ka baryay, waa jiranahay oo waa daalanahay oo cudurkii waa laynagu caayay oo daalkii waa laynagu caayay oo caruurtii inaga xumaatay waa laynagu caayay. laakiin allah baanu hoos dhiganaynaa, allah inaga xigta male. cudurka caafimaadkiisa allah haya, shaydaanka waxa looga hanuunsamo allah baa haya, allah baa inaga celin kara shaydaanka. hanuunka allah baa haya oo ina hanuunin kara. asturaadda allah baa ina asturi kara. caafimaadka inaga maqan allah baa ina siin kara. awlaadana allah baa ina siiyin, isagaana inuu hagaajin kara. waxaan idiin sheegayaa horey aan u soconno, dulmiga aan iska dayno, diradiraalaha aan iska dayno, inaan iscayno aan iska dayno, aan isu maciino. gabdhaynu nahay, daal kasta aynu nahaano waynu daalanahay. dalkeeni waa la soo daadiyey, annagoo raggeena caayay, annagoo raggeena xumaynay. raggeena waa dhibaataysan yihiin. dhibaatadu meeshay uga timidna waxa weeyaan markay yaraayeen baa gabdhahooda loo gumeeyey. anigu markaan wax raadiyey oo maskaxdaydu wax raadisay, gabdhaha yaryarka oo guriga jooga oo wiil ayada la eg ama ka weyn loogu shaqaynayo, ohda iyo ahda iyo habaarka. gabdhuhu habaar rabaan markay yaryar yihiin, u malayn kartid waa saqiir, waa innocenti, ma fahamti. waxa weeyaan baryadooda waa la aqbalayaa. ilaahay waxa weeyaan waa caadil, ilmaha caadil. wixii hore inugu dhacay way dhaceen, hadda ka bacdi wiilasha saan dhibaata idinkaga dhicinay. gabdhaha ay u shaqaynayo oo loo gumaynayo oo wiilku aaminsan yahay inay gabadha aanu guriga gabar shaqaalo ka ah inay tahay uu u qabo oo wiilku booska yahay. wiilasheenna waxa baabi'iyey waa gabdhaha loogu xamaalayay. wiilasha yaan la baabi'ini. wiilku waa xoog buu leeyahay, wiilku caqli buu leeyahay, wiilku gacmuu leeyahay. wiilka waxa loo soo jiida ayaa ka daran. wiilku waa qabsan karaa. gabadha walaashiisa iyo wiilka shaqadaha loo simo. gabdhaha dhibaatada laga daayo. habeenkaan dhalanaa nalaga dhaxay, habeenkaan dhalanaa nalaga dhaxay. nimanka Soomaaliyeed ee xataa meel fadhiyaan la dhaho xaaskaagu waa dhashay, maxay dhashay gabar haddii la dhaho ayadaa isdhashay buu dhahaya. dhibaataan sheeganaa, waxbaa qabnaa. inaguna waa isdulanaa gabdhaha Soomaaliyeed. ilaahay ku dhaarshay gabdha isdulanka iska daayay. innagaa isdulana, annagaa laysu keen adeegsadaa. annagoo daalan, gabadheena daalan caawiyo. haddaadan caawinin cayda ka daaye, gabadheena dhibaatada ka daaye, gabadheena daalan daalka ka daaye, dhibaatada ku haysan ka daaye. gabdhaha Soomaaliyeed oo isu weeliya waa isu weelin karnaa. gabadhaan Aamina Muuse Weeliye waxaan ku leeyahay walaalo, ilaahay wax ku qaawiyo kuguma keeno.
إلهي وحق وحيرة كذا كذا أنا قرأ ميرا أنا قرأ بدل ولا أنا الدين لك تلبان كسوق لي بالله يقاوي أو تلك يقاوي ورك صومالية يقاوي ولا يسوق يتجي ولا أنا واقو قرب استاجينا أنت أنا واقو قرب استاجينا وحنا قبيلنا كما قلت قبيل مليين الضوء الله بيننا هاي الله بنا كدغنينا ايدي سانو ورينا الهي بان برينا الله ودان بدسنينا حنونك الله بخيا ما ادري اصحابي انت سرماينا يدي شيغو aniga hadda ka bacdi maraqaawan bal sheegaysa ay garbasaari u arkamaysa niqaab kaas wajigayga ku xiran saan ugu xiray saakayto ilaahay baa ogaa gabar kasta iyo wiil kasta iyo nin kasta oo wax iga sheeganayana cafis baan idin weydiistay cafisna ay cafisaan baan idin weydiistay ilaahay subxaanahu watacaala ee akoonkan taagay ee arsaaqada bixiya ee caafimaadka bixiyana ogow inuusan qofna qof magan oga dhigin koob yar hadduu kuugu shubayo iyo hadduu koob weyn kuugu shubayo ilaahay wuxuu kuu qadaray waad helaysaa hadday cudur tahay hadday mataqaanaayeeto caafimaad tahay hadday arsaaqa tahay hadday dhibaato kala tahay wax kasta laakiin waxaa la raadinaya annaga sabarkeena kuwii ku sabra allah naga dhigo kuwii ku sabra allah naga dhigo kuwii ku sabra ilaahow dhibaatadan soo maray ilaahayow dhibaatadan soo maray maantaan taagnaa heer walbaan soo maray ilaahay asagaa inta ay celinayay ilaahay asagaa inta ay celinayay ilaahay asagaa inta ay celinayay gabdhaha soomaaliyeed oo dadka warka u keena gabdhaha soomaaliyeed aniga war ha ii keenay anigu war ma doonayo aniga qof in war la iiga keeno dooni mayo qof in necib in war la iiga keeno dooni mayo qof in necib in war mataqaanaayeeto wax la iiga soo qaado dooni mayo qof iga hadlay in warka cajaladiisa la ii soo diro dooni mayo inuu qof aniga qof i kiciya gabdha soomaaliyeed oo qurbaha jooga oo ii awooday anigoo homeless ah oo wiil soomaaliyeed ilaahay weyn oo waaxidka ah jannatul firdaws ha siiyo xafiisaad ilaahay waxaan ka baryay arsaaqada adduunka iyo awlaad barakale guri barakale ilaahay inuu ku siiyo annagoo dhan ilaahay inuu siiyo wiilkii gurigiisa ii geeyey ee allah darti ii geeyey hooyo soomaaliyeed oo dhiban inaan aha igu geeyey gabdha soomaaliyeed oo qurbaha jooga oo ii quurinin inay $50 iyo $100 inta isugu kay dardaraan guri ii kireeyaan oo warka ii keenaya uma baahni war aniga la ii keeno uma baahni qofkii i cunaya waa u fasax dhiigay asaga maalinta qiyaamaha keenaya qofkii i caayaya caydaydu waa u fasax asaga maalinta qiyaamaha keenaya anigu qofkaan caayo anigaasu kale ii suraya hadduusan i cafiinin laakiin qof i caawin kara inuu war ii keeno iska dhigo inuu ehel ii yahay ma aragtay oo faan ii yahay oo saaxiib ila yahay no gabdhaha dumarland maalintaan soo baxay iyo wiilashaba maalintaan soo baxay ilaa maanta qol dadba mar imaadeen oo intaa i taageerayay oo intaa dhibaatadeyda arkay ilaahay waxaan ka baryay awlaadiina iyo guryihiina iyo ilaahay inuu idii xafido oo ilaahay waxaan ka baryay inaynaan weligin xumaan igula talinin inaynaan waa ogahay inaynaan weligin wax xumaana ii keenin oo aynaan weligin war ii keenin oo jasta aad arkayseen inaan victim ahay oo igu sabood garaynayseen allah waxaan ka baryay ilaahay waxaan ka baryay ilaahay waxaan ka baryay inuu ilaahay jazaa'idkiina janno ka dhigo ilaahay waxaan ka baryay awlaadiina inuu dhahay xasiloon ka dhigo ilaahay waxaan ka baryay guryihiin guryo jannada guryahooda oo kale ilaahay inuu idinka dhigo zawjajkiina ilaahay inuu baara idinka dhigo ilaahayna inuu idinku kuwii ilaahay ku xiran inaan wada noqono oo aanu ilaahay subxaanahu watacaala kuwii raalligeliya aynu noqonaan allah ka weydiista kuwii jannada isku arka ilaahay inuu inaga dhigo waa ii hiiliseen allah idii hiiliyo oo waa i caawiseen allah idi caawiyo oo waa ii dhibriseen allah idiin dhibriyo oo waa ii gargaarteen allah idiin gargaaro ilaahay ii soo baryo awlaadeyda iyo awlaadiinaba ilaahay inuu hagaajiyo kulligaan oo dhan ilaahay aan isu soo barina kulligaan inuu caafimaad siiyo aniga caafimaadka allah i siiyo laakiin allah wuxuu ku yiri dadaal waa kula jiraay ilaahay baa isala siiye meesha u dadaalay salaamiya waa in jeclahay
waxaan rajaynayaa inuu janalkaygu noqdo janalka khayraadka laga dawariyo, inuu janalkaygu noqdo meesha qur-aanka laga aqriyo, inuu janalkaygu noqdo meesha waxa wanaagsan soo gudbisa, inuu janalkaygu noqdo dad xumaanta ka nastahan, wixii hore oo dhan ilooba, magac cusub albaab cusub furtaan allah weydiista inuu noqdo. janalkan qofka iskale waa aniga, youtubeka waxa iskale waa aniga, facebooka waxa iskale waa aniga, hadduu naar ku galaayo waxa ku galaya naarta waa aniga, hadduu janno ku galaayo waxa jannada ku galaayo waa aniga, hadalka qofka ku hadlo waa aniga, khayr iyo sharba waxa hadlo waa aniga, qof kale maahan. qofna qof dembigiisa ma qaadayo. gabdhaha soomaaliyeed oo baraha bulshada ka hadlo waxaa idin leeyahay yaan lagu orani saaxiib baan kulahayo naar yaan lagu jiidi. anigu waxaan ku fiicanaa weligay allahay oo allah iiga sarreeya inaanan qof intuu wax ii soo sheegay aanan wixiisa ku dhaqminin. waxaan ku hadlo waxa aniga iga soo baxa inay ahaayeen, wixii qaldanna shaydaan ay ka yimaadeen, wixii wanaagsanna ay ka yimaadeen allah inay ka yimaadeen. taasaan anigu ku qalbisamahay. laakiin warbeena ma soo gudbiyo, balaayo kale ma soo gudbiyo. anaaba buuxayda, anaaba shar iyo khayrba iga buuxayda. waa idin salaamayaa. ilaahay waxaan idiin weydiinayaa jannatulfirdaws alculaa. ilaahay waxaan idiin weydiinayaa hanuun. ilaahay waxaan idiin weydiinayaa dembi dhaaf. ilaahay inagoo dhan inoo dembi dhaafo yaa allah. aduu ilaahay oda hanuunka iskale waxaan ku jira ilaahoodan igu dilin, ilaahoodan adoonkaaga waan gartaa anigoo salaad tukan, anigoo salaad tukan baan gartaa oo salaad kusoo tooso ilaahay arsaaqadaysiiyaan karta. asxaabaya idin salaamaya, raalliga soo heliya amina muuse iyo arlada alloon walaalo keligaa matiin inagaa ku garab taagan. isma qaawinaysid aaminooy walaalo, isma qaawinaysid walaal. ilaahay dartiisa adii tahay, gabar soomaaliyeed baadii tahay, wallaahi inaadan isqaawinaynin. adeerkay anuu ku dhaartay inuu iqaawiye, ku dhaartaa inuu iqaawiye, ku dhaartaa inuu saan yeelay. walaalo anagaa ku garab taagan. I'm so sorry. gabar soomaaliyeed baa tahay, walaashayaa tahay. wixii xun meel baan kaala taaganahay, wixii wanaagsan ha la ignoor gareeyo. dadka xunxun yaan la dhegaysanin, yaan la dhegaysanin. waxay doonta ha ahaado sharci dawlo iyo sharci diineedba aan isla garab istaagno. wixii inagu xadgudba oo sharafteenna iyo nabadeenna iyo cirdigeenna ku soo xadgudbaya inaynu ka midowno aynu samayno keliya. intaa keliya aan u baahannaha. wax sharafteenna iyo cirdigeenna iyo ilmaheenna iyo gurigeenna maamulyoona iyo taasi ahaday. waana markii ugu horreysay muuqaalkan ay soo duubto iyadoo ayna sharar xiran, xijaaban, asturan. daawadaysa muuqaalkan waxay sheegtay inay la kulantay dhacdooyin xanuun badan oo sabab u noqday isbedelka. maxay kula tahay daawade? waxaa soo dedejiyay isbedelka sideese u aragtaa? qaybta hoose aragtida ayaad nagula wadaagi kartaa. sina shargaray muuqaalkan mid lamid ah intaan ku kulmi doono muuqaaladina cadiga nabadgelyo cadiga.